بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan leeyahay hambariyo hawsha Allah idin la qabto guddiga kumeel gaarka shaqada loo qabtay sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii kumeel gaarka ah ee shaqadan soo waday ahna guddiga qabanqaabada xibnaha himilo qaran ee maanta halkan fadhiya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka aan kala go'o lahayn ee xilliga adag ay soo galeen ku suura galiyeen maanta inuu xisbigu halkan soo gaaro aad iyo aad u mahadsantiin aan leeyahay marka hore intaas kadib waxaan u maleynayaa inaan ka wada dharigsanahay sababta isu keentay intaan qof ayna tahay inaan aaminsanahay in loo baahan yahay xisbi siyaasadeed oo hana kara talada dalka kana saari kala xaaladda dalku ku jiro gaarsii kara ummadda Soomaaliyeed himilooyinka ay higsanayaan dadkii oo dhan ma aha laakiin waa dad asaas u noqon kara dad badan oo Soomaaliyeed oo wax karada oo rag iyo haweenba leh inay xisbiga ku soo biiraan oo ka qayb qaataan sidaan wada ognahay xisbigu wuxuu soo maray maraaxil kala duwan walina waxa uu dhiman maraaxil ay tahay inuu gudbo oo si wanaagsan oo leh mataqaana hufnaan iyo karti iyo waajihid oo waajahayo xaaladda dalka qaybaheeda kala duwan inuu maro marka sidaan wada ognahayna dalkeenu uma laha taariikh dheer arrimaha xisbiyada waa laga yaabaa odayaashii naga horeeyay oo aan u maleynayo odayaasha xagga fadhiga qaarkood inay ka mid yihiin inay soo arkeen axsaab laakiin inteena badan ama xilligii dowladda militariga ama xilligii ka dambeeyaan laga yaabaa in ay madhasheen ama la soo jaan qaadeen ummad hadday meel joogtana waa lagama maarmaan inay helaan nidaam siyaasadeed oo ku dhisan cadaalad oo xaqiijiya himilooyinka ummadeed ee dadku ay leeyihiin si taas loo gaaro marka waxaan aaminsanahay xisbiga himilo inuu ka jawaabayo arrintaas oo yahay xisbi ku habboon inuu shaqadaas qabto aan hubo insha Allah tabaaraka wa ta'ala ummadda Soomaaliyeed inay kalsooni badan ku qabaan rajo badan ay ka qabaan shaqadaas inuu qabto maadaama ay sidaas tahay oo ummaddu ay kalsooni badan ku qabaan rajo badan ka qabaan inaan runtii isku dhiirigelino inaan shaqada nagala filayo sida ugu wanaagsan aan uga soo baxno waxaan rabaa inaan u gudbo dadka Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa bulshada hadda joogta boqolkiiba 73 waa dhalinyaraduna marar badanna waa cabtaan oo waxay yiraahdaan si badan uga muuqano waxaan rajaynayaa xisbiga himilo qaran inuu noqdo midka fursad weysiya dhalinyarada hogaanna waxa ugu wanaagsan la yiraahdaa midka diyaariya jiilka bedeli lahay marka ma aqaan aniga hadda qolada ay ku tirinayseen laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ka qayb qaato diyaarinta jiilka cusub insha Allah xisbiga aanuna oo noqdo xisbiga lagu calaameeyay inuu shaqadaas qabto qodobka saddexaad ama afaraad aan rabay inaan u gudbo waa haweenka oo mar walba ay xibin firfircoon oo ka qayb qaadata arrimaha qaranka arrimaha qoyska aan ka daalin ummadnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed ayadana waxaan rajaynayaa in uu xisbigu noqdo xisbi si ahmiyad weyn arrinta intaas aan ka dhicin waxa waaye isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo wax wada qabsigeeda iyo dhismaha kalsoonidooda oo iyadana ah arrin muhiim ah oo aan rabno xisbigu inuu ka jawaabo runtii si wanaagsan u bilaabatay laakiin aan rajaynayno sida ka fiican si ka fiican oo ka ballaaran inuu xisbigu waajaho waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo dareenka dad badan oo xisbiga ama xibno badan oo xisbiga kamid ah ay qabaan oo ah inay gobolada kala duwan dalku ay xisbiga aad uga muuqdaan xisbiga oo gaaro gobolada oo runtii aan qabo inay noqoto arrin istiraatiiji oo xisbiga ahmiyad gaar ah la siiyo ma raba inaan aad u dheereeyo warka insha Allah guddigan u day doona daadinta xisbiga daahidinta shirka aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.